waxaa laga dareemayaa magaalada boorama udiyaar garowga sanad guurada 25aad ee ka soo wareegtay maalintii qarannimada jamhuuriyadda somaliland ee ay xornimadeedii dib uga la soo laabatay dalkii la isku oran jiray Soomaaliya sanadkii 1991 dadweynaha reer boorama ayaa lulayay calanka astaanta oo ah jamhuuriyadda Somaliland ee saddexda midab leh waxay dadweynuhu lahaayeen 18 May hawarto waxana madaxda dadweynaha xildhibaano madax kale oo ka tirsan xukuumadda Somaliland dhalinyaro iyo odayaal kala duwan ayaa dareenkooda ka muujinaya sida loogu diyaar garoobay xuska 18 May oo ah maalinta qarannimada jamhuuriyadda Somaliland waxaanay dadweynaha reer boorama xusuusanayaan xusaskii kala duwanaa ee ka horreeyay xuskan oo ah kii 25aad ee qaangaarka jamhuuriyadda Somaliland ee calankeeda aan maanta harsanano waxaanay weliba ka waramayaan qaarkood waxqabadkii xukuumadihii kala duwanaa ee Somaliland soo maray muddada 25 sannadood ah dadweynaha iyo madaxda kala duwan ee ka hadlaysa u diyaar garowga xuska 18 May waxa hadaladoodii kamid ahaa waxaan kale ugu baaqiyaa bulshada reer awdal iyo dhammaan shacabweynaha reer Somaliland in maalinta qarannimada waddankeena ee ka soo wareegtay 25 guuradii maalintii aynu la soo noqonay xornimada ee 18 May ee lagu soo foolay inay si weyn uga soo qayb galaan sidii looga bartay iyo si ka weyn inay u xusaan runtii maanta waxaan ugu baaqayaa bulshooyinka ku nool degmada boorama inay si fiican oo qurux badan oo qaaliya ay xuskan 18 May ay uga qayb qaataan qof walba ku joogana inuu iska xil saaro taasoo maad aragtay goboladu ay ku tartamayaan gobol walbaaba sidii maad aragtay u xus 18 May waxweeyaan waa maalin qaran waxaan leeyahay bulshada reer Somaliland gaar ahaan dadka gobolada awdal iyo salal ku nool waxaan leeyahay si mugle ha loogu soo baxo maalinta 18 May aanan ku faraxsanahay 18 May waana maalintii xornimada ay Somaliland qaadatay nabadana ma waan waraysigaada maanta laga qaadayna waxa laga qaadayaa waa nabad wadamada qaar waxa jirta aynan sida chance aan loo helin in lagu waraysto in nabadda lagu soo dhaweeyo وانا waddankii aan wax ku baranay aan ku dhashay aan ku soo barbaaray waana soo dhaweynaya maalinta qarannimada Soomaaliya dimuqraadiyadeena waxay noo salaam ama noo saxayna waa isticeelka iyo kala dambeyntii iyo maxay ahaydeenay hanaaka toosan taasi waxay keentay inaan maanta calankeenu ka babado meel kasta oo nabadgelyo lagu seexdo oo nabadgelyo lagu soo toosay Ilaahay baa mahad leh dama aan hay qaran hiigsanaya asaagii waxaan leeyahay dhammaan dadka jamhuuriyadda Somaliland degan haddii qurbaha joogan iyo haddii dalka joogaanba waxa imika inagu soo fool leh munaasabadii 18 May taasina 18 May waxay u baahan tahay inaan si ka bedelan maanta uga hawlgalno sidii hore oo xuskeegii yeelato mudnaanteedii yeelato waqti iyo juhdi iyo maxay la geliyo munaasabadaasi inagu soo aadan dadka Somaliland oo ku beegan maanta xurmada Somaliland qaadatay oo ah 18 May maalintaas waa maalin ku tusan shacabweynaha Somaliland ma kasta joogaan inta wanaagga jecel waa Somaliland marka la eego daadaan ku jiro ama daadaan ku jiro Somaliland waxa weeyaan inta ku calaamaasho wax ku baratay ee ku degan garaad ku yeelatay calanka Somaliland taana aad iyo aad baan ku faraxsanahay in maalintaas Somaliland aan xusno oo ay tahay maalin qaran maalin dhinaca wanaagga marka loo eego maalin aad weyn waa maalintan waxayna xasuusinaysaa haddii ay maalintan imaneen waxaan dibadhac badan baa jiri lahaa laakiin maanta waxaan leenahay aad ayaan u soo dhaweynahay dhimay waxaan u sheegaynaa dadweynaha ku nool degmada boorama inay u diyaar garoobaan xuskii maalinta qarannimada Somaliland 18 May waxaan furaynaa mixrad kastaaba inay sudho astaanta qaranka calanka jamhuuriyadda Somaliland qadaha hay'adaha dawladda iskuulada
caafimaadka kulli dhammaanba waxaa laga rabaa inay u diyaar garoobaan maalinta qarannimada Somaliland xuskeyga. Tan guuradani waxa ay kaga duwan tahay kuwii hore dadweynaha oo qiiro iyo xamaasad ku soo dhaweynaya maalintaasi. Waa Caafi TV-ga qaranka Somaliland boorama.